بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الملك مكية وآياتها 30. سورة 10 كنوعا وكبل لابنا يا سورة الملك بالليل هذا، وسورة مكية شأنها شأن سائر السور المكية التي تعالج موضع العقيدة في أصولها الكبرى. وعيك هذا ليس عقائد كسورتها مكية هردان سيداسي أبدانيهين. عظمة إله يأود إله إنه وحنولاي وحدلو يبراهين تي أدلة كسو أراتبه كهذا للدونتا. وحي سورة إن شاء كهذا للدونتا سيداسو كالياتو awoodda ilaahay iyo saldanada ilaahay bay ka hadlaysaa. samaawaadka abuuridooda iyo waxa lagu qurxiyo bay ka hadlaysaa. dadka mujrimiinta oo xun iyo cadaabta ay la kulmayaan bay ka sheekay doontaa. waxa lagu khatimi doonaa digniin la siinayo dadka ilaahay beeniya oo cadaabta iyo looga digayo cuquubada cawaaqibta xun bay la kulmi doonaan. bismillaahir rahmaanir rahiim. بسم الله إلهي مقعيسة الله سوء الرحمن النحريسة عام كأن نحريسة الرحيم النحريسة قارهانيد نحريسة أيان أبتدئ كب اللابنا يا مقعيسك تبارك وحاكر هذي ووحوي الشرف بدنادنا واضليه كرتاه وحمان وردن كن السهنادي الذي إلهي بيده أودي سأل ملكه milkiyadoo dhamo ay ku jirto oo wax kasta asagu milkiya. wa huwa ilaahay ala kulli shay'in shay kasta dushiisa qadiirun waa mid yuwaada ilaahay shay walba wuxuu ku yahay. waa ilaah qaadir ku ah subxaanahu wa tacaala. alladii waa midkii ilaahay ama huwa u soo qadaro. ilaahay waa alladii waa midkii khalaqa uumay almowta dhimashada iyo walxayaata noloshaba ilaah baa uumay. liyabluwakum inuu idin imtixaamo aawadeed buu u abuuray. ayukum kiinii axsanu wanaag badan camalan min camalin xagga camalfalka. wa huwa ilaahay alcasiisu waa mid sharaf badan oo xukunkiisa qaalib ku ah. alqafuuru waa mid dembi dhaafid badan ilaahay subxaanahu wa tacaala. alladii ilaahay waa midkii khalaqa uumay 7 samaawaatin 7 samo ayuu ilaahay uumay. 7 samood dibaaqan iskor saaran oo isku daboolan. maa taraa arki maysid fii khalqi raxmaani allaha raxmaanka uunka iyo makhluuqa ou abuuray min tafaawutin kala tagsanaan iyo waxa weeye kala dheeraan ku arki maysid. guri la dhiso oo qalqallooc ka muuqda ayaa jire ilaahay makhluuqa iyo samaawaadka ou abuuray wax tafaawud ah ama nuqsaan ama dulduleel ah ama qallooc ah ama kala fogaana ama waxa weeye ma ku arkaysid. farjicil basara aragga celi bal fiiri buu ilaahay ku leeyahay samaawaadka. hal taraa ma aragtaa min fuduurin wax dildilaaca samada ma uga jeedaa ama qallooc oo dhismadeeda foolxumaa ma ka dareemi kadhaa? jawaabtu waa maya. thumma arjicil basara aragga celi haddana oo bal ku laabo karratayni 2 celin. macnaha waa tasniyo oo mulxaqa waxaan rabaa waa mulxaqaatul musanna la yiraaho bimacna taksiir baa looga jeedaa. 2 kaliya ma ahane wax badan ku celceli way marra bacda marra. haddaad si kasta samada u fiirido yanqalib soo laabtee ilayka xaggaaga albasaru araggii khaasi'an xaal ou yahay mid daalan ama xaal ou yahay mid dhiban ama xaal ou yahay mid hungoobay oo wuxuu soo laabanayaa soo daalay. wal xaal huwa asagu xasiirun ou yahay mid daalanoo habsaamay oo waxba macnaha waxa weeye aan ceeba soo arag. walaqad xaqiiqanimee zayannaa waanu qurxinnay assamaa'a samadii addunyaa ee dhoweed bimasaabiixa iftiinyaal iyo xidigo oo faanuuso lamida baan ku qurxinnay. wajacalnaa waxaanu ka yeelnay xidigihii rujuuman macnaha gemidyaal rujuuman dawaati maraajima gemidyaal kuwa u saaxiiba baan ka yeelnay lishayaadiini shayaadiintana aan uga yeelnayo
shayaadiinta ayaa shuhubta lagu tuuraa markay samaawaadka aad maagaan wa actadnaa waxaanu u diyaarinay lahum shayaadiinta cadaaba saciiri cadaabtii kulaylka badneed baan u diyaarinay waliladiina kuwii waxay leeyihiin kafaruu gaaloobay birabbihim rabbigooda rumayntiisa ku gaaloobay cadaabu jahannama ilaahay ha naga badbaadiyo jahannamo cadaabteeday leeyihiin wa bi'sa almasiiru meel la ahaadona oo qofku bini aadamka u laabto jahannama uxuna caadana allaahu minhaa idaa goortii ulquu lagu tuuro fiihaa jahannama dhexdeeda ahlunaarka samicuu waad maqlee buu ilaahay yidhi lahaa jahannamada inay u sugnaatay shahiiqan hinraag walxaal hiya ayadu tafuuru ay karaydoo taqaynayso takaadu waxayba sigee ama u dhowaanaysaa tamayazu inay soo farabaxsato oo soo soocanto min alqaydi caro daraaddeedna ay u soo orodoo u soo go'daba kullamaa in dhammoo ulqiya lagu tuuro fiihaa jahannama dhexdeeda fawjun guuto oo ahlunaarka ka mid ah sa'alahum waxay su'aalayaan khasanatuhaa kuwa kaydkeeda maamula kuwa macnaha furaheeda kuwa waxa weeye khaasiniinteeda ah oo malaa'igta khasanada la yidhaahdo oo jahannamo waxa weeye jahannamo malaa'igta maamula oo la yidhaahdo khasanatu naar zabaaniyada la yidhaahdo oo loo wakiishay maamulkeeda inay macnaha waxa ahlu naarka inay cadaabaan ilaahay u diray alam ya'tikum yawsan idiin imaanin nadiirun mid idiin diga ayay odhanayaan qaaluu markaasi ahlu naarkii dhaheen balaa maya macnaha waxaan rabaa balaa maya inuusan noo imaan iska dhaafe balaa inuusan noo imaan iska dhaafe balaa nacam weeye maya maaha inuusan noo imaan iska dhaafe nacam waa noo yimid qad jaa'anaa waxaa noo yimid nadiirun mid noo digaa noo yimid fakadabnaa waan beeninay wa qulnaa waxaan nidhi maa nazzala allaahu ilaahay sooma dejinin min shay-in shayba sooma dejinba in antum maa antum adinku ma tihiidiin malaa'igtii baa odhanaya ama ayagiibaa isku marakacayaba in antum maa antum adinku ma tihiidiin baan dhahnay adduunka markaan joognana waa lagu fasiri karaa gaaladii baa dhahaya waxaan ku dhahnay ambiyada iyo kuwii noo digaayey in antum maa antum adinku ma tihidiin ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed maahane wax kale ma adnan ahaanin baadidaasoo kabiirin weyn wa qaaluu ahlu naarkii waxay dhaheen low kunnaa haddaannu ahaan lahayn nasmacu kuwa wax maqla ow nacqilu ama wax garta maa kunnaa ma annu ahaaneen fii asxaabi saciiri naarta saciiro la yidhaah dadka ku jira ka mid maannu noqoneen factarafuu way qirteen bidanbihim dembigoodiibay qirteen fasuxuqanna waa la akhriyaa bidammi alxaa'i wa sukuunihaa qiraa'ataani sabciyatan laba qiro weeye fasuxqan allow fagaasho ay u sugnaato liasxaabi saciir naarta saciiro la yidhaah kuwa u saaxiibada ah fagaan baa u sugnaatay ilaahuw fagaasho u sugnaatay ka dhiganta waa ducaa'u waxa weeye waa ducaa'iyo fasuxqan allaha fageeyo liasxaabi saciir naarta saciiraan dadka u sugnaaday ilaahay baa fageeyey allaha fageeyo abcadahum allaahu min raxma naxariista allaha ka dheereeyo saasaa lagu sii habaarayaa bismi illaahi araxmaani araxiim tabaaraka waxaa nasahnaaday alladii ilaahii biyadihi awooddiisa ay ahaatay ilaahay awooddiisa ay u ahaaday almulku hanashada oo dhammo awooddiisa ay ku jidho ilaaha ayaa xumaan oo dhan ka nasahnaaday tabaaraka ay tanazaha ilaahay baa nasahnaaday oo sharaf lahaaday alladii ilaahaasoo biyadihi awooddiisa almulku mulkiyadoo dhammo ay ahaatay wa huwa ilaahay calaa kulli shayin shay kastana qadiirun waaba yuwaadaa alladii waa midkii ilaahay khalaqa abuuray almowta dhimashada iyo walxayaata noloshaba ilaah baa abuuray labadaba waxaa loo abuuray qofkii wuu noolaanayaa nolosha ilaahay baa abuuray haddana wuu dhimanayaahoo noloshii adduunyada laga qaadayaa xayaato kaleoo barsiqiyaha lagu abuuraa
dhimashadaasna ilaahay baa abuuray walmawta khalaqa almawta walxayaat ilaahay wuxuu labadaaba u sameeyey liyabluwakum inuu idin imtixaamo ayukum kiinii axsanu wanaag badan camalan min camalin xagga camalfalka bal qofka fiican iyo qofka xun si loo tartansiiyo oo de macnaha waxa weeye qofkii camalkuu sameeyo markaa la yidhaahdo kii naarta galana xumaantii aad shaqaysatay weeye miraheedii kii jannadii wanaaggeedii mutaysana la yidhaahdo adigana waxa weeye waa mudankaagii iyo ujradaadii sidaasaa waxa weeye imtixaam ahaan bay arrintu u dhacday bal si ilaahay ou idin imtixaamo oo markaa midka wanaagga samaynaa iyo midka xumaanta samaynaa ay kala haraan wa huwa ilaahay alcasiisu waa midka xukunkiisa qaalib u ah alkafuuru ee haddana dembi dhaafidda badan alladii ilaahay waa midkii khalaqa uumay 7 samaawaatin 7 samo ilaahay abuuray 7 samo dibaaqan isdul saaran 7 samo oo iskor saaran buu ilaahay abuuray maa taraa arki maysid fii khalqi araxmaan fii khalqi araxmaani allaha raxmaanka ah uunka ama abuurista ou abuuray oo samaawaadka min tafaawutin kala tagsanaan iyo iskala wax qalqalloocnaan ah iyo kala fogfogaan ah oo foolxumaho kaaga muuqanaa ma jiraysa weeyaan bal samaawaadka fiiri haddii ceeb aad ka arki doonto farjicil basara araggaaga celi oo xagga samaawaadka u celi baa la yidhi waxaa macnaha waxa weeye laleeyahay samaawaadkii bal fiiriyo ku celceli aragtidaada hal taraa ma arkaysaa min fuduurin dildilaa iyo jeex ma uga jeedaa waa maya jawaabto famarjicil basara aragga celi karratayni laba macnaha celin maratan bacda mara raddidil basara maratan bacda ukhraa bal fiiri kuna cibro qaado yanqalib soo laabtee ilayka xaggaaga albasaru araggii khaasi'an xaal ou yahay mid soo noogay mid waxaan rabaa waxa weeye soo hongoobayoo aan waxaba ceeba soo arkin shay markaa inta meel istilaa ama ku soo arki doonta ka soo goob aad ka weydo qofkaas waa soo hongoobaa la yidhaahdaa araggaagii wuxuu soo laaban hayaa asagoo hongoobay asagoo dullaysan oo aan waxba soo arkinin wal xaal buu soo laabanayaa huwa araggii xasiirun ou yahay mid habsaamay oo mid daalan ou yahay weeyaan daalanna waa dhihi kartaa walaqad xaqiiqanimee zayannaa waanu qurxinnay assamaa'a samadii addunyaa ee dhoweed bimasaabiixa faanuusyaal iftiinyaal baan ku qurxinnay masaabiixdaa waa xidigihii oo sida faanuusyaalkii ifaaya lagu matalahayo ilaa way ifayaani wajacalnaahaa xidigaha waxaan ka yeelnay rujuuman dhawaati maraajima rujuuman kuwa la gamo oo waxa weeye lagu gamo shayaadiinta lishayaadiini baan uga yeelnay rujuum kuwa lagu gamo lagu rajmiyo shayaadiinta samaawaadka aad maagaysa baan ka dhignay xidigaha weeyi waactadnaa waxaanu u diyaarinay lahum shayaadiinta cadaaba asaciiri naarta saciire la yidhaha cadaabteedaan u diyaarinoo shayaadiinta waxaanu u diyaarinay cadaabu saciir ayaan ugu talagalno ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala acaadana allahu minha waliladiina kuwii waxaa u sugnaaday kafaruu gaaloobeen kuwa gaaloobay waxaa u sugnaaday birabbihim rabbigooda ku gaaloobeen cadaabu jahannama cadaabteeday leeyihiin wa bi'sa almasiiru meel la ahaadana jahannama awxuun ilaahu hana geynin idaa ulquu markii lagu tuuro fiihaa jahannamada dhexdeeda samicuu waad maqlee lahaa jahannamo inay u sugnaatay shahiiqan hinraag baa ka yeeraya jahannamada sawd xun ayaa la yidhaahdaa oo waxa weeye sida markii loodoo kale iyo cuntada loo dhigi rabo dhawaqa ka yeero kaleeto oo feerakaca iyo waxa ka yeeraya ama dameeraho kale markay dhawaqa ay celinayaan hinraag ka baxayo kaleeto wal xaalihi ayadu tafuuru ay karayso ama ay taqaynayso weeyaan takaadu waxayba sigee jahannamo tamayazu inay soo farabaxsato oo soo soocantoba min alqaydi caro daraaddeed kullamaa in dhamo ulqiya lagu tuuro
fiihaa jahannama dhexdeeda fawjun guuto sa'alahum waxay su'aalahayaan khasanatuhaa malaa'igta ka shaqayda alam ya'tikum oo miyuusan idiin imaanin nadiirun nabi idiin digaahi muusan idin soo gaarin maxaa idinku dhacay qaaluu markaasi waxay leeyihiin ahlu naarkii balaa inuusan noo imaan iska dhaafi wuu noo yimid qad jaa'anaa wuu noo yimid nadiirun nabi noo diga fakadabnaa laakiin annagaa beeninay wa qulnaa waxaan dhahnay maa nazzala allaahu ilaahay sooma dejinin min shay-in wax uu soo dejiya ma jiraan gaaladii baa waxay leeyihiin waxaan ku dhahnoo kale ambiyada in antum maa antum adinku ma tihidiin ilaa fii dalaalin kabiirin baadi weyn maahane dhexdeed oonbad ahaateen wax kale maadnan ahaanin saas baan ku dhahnay ambiyada waad lunsan tihiin baan nahnay ilaahay waxaba sooma dejin annagaa beeninay laakiin nabi waa noo yimid saasay leeyihiin qaladkoodii bay qiranayaan hadde mar wax la qirto oo qirashada wax anfacayda ma aha waxay ahayd adduunka markay joogaan hadday qiran lahaayeen oo ay waantoomi lahaayeen oo ilaahay rumayn lahaayeen oo ay ilaahay u soo noqon lahaayeen waa anfici lahayd laakiin adduunkii mar haddii laga tegey ceeb kastood qirato iyo toobakeenku waxba ma anfacahayo wa qaaluu waxay kaloo dheheen gaaladii low kunnaa haddii aan ahaan lahayn nasmacu kuwa wax maqla ow nacqilu ama wax garta maa kunnaa ma aanu ahaaneen fii asxaabi saciiri naarta saciiro la yidhaahdo asxaabta ku jidha kama aanan mid noqoneen maa kunnaa nastawjibu alkhuluuda fii jahannama faactarafuu waxay qirteen bidanbihim dembigoodii bay qirteen fasuxqan ama fasuxqan allow la fageeyo ilaahay ha fageeyo liasxaabi saciir naarta saciiro la yidhaahdo kuwa u saaxiibada ah alla ha fageeyo macnaha naxariista ilaahay ha ka fageeyo kuwa fageyn baa u sugnaatay kuwa waa la fageey ilaahay ha fageeye saasay ka dhiganta suuraddan waxaa la yidhaha suuratulmulki baa la yidhaahdaa bismi illaahi araxmaani araxiim tabaaraka aladii biyadihi lmulk buu ilaahay yidhi tabaaraka bimacnaa tanazaha allaahu can sifaati damiima ilaahay baa nasahnaaday tabaaraka bimacnaa tamajada wa tanazaha a lagu macneeya khayrkiisaa fara badnaaday wa tacaadamana waa la yidhaahdaa ilaahay baa weynaaday oo ka nasahnaaday xumaan oo dhan oo sharfanaaday alladii ilaahaasoo biyadihi hadda yad marka la yidhaahdo yaddaadoo kale ma aha waxay ka mid tahay waxa weeye shay tashbiih mar hadduu kuu suuraynayo dariiqii salafka ay agsarkoodii mareen waad mari kartaa oo ah inaad tidhaahdo yaddeenoo kale annaga ma aha waa yad ilaahay ou qur-aanka ku sheegay laakiin annaga waxay tahay garan mayno teennoo kalena macnaha ma suuraysanaysido waaba anfinaysaaba ilaahay baa yaqaana ama yadda sidai ay ku fasireen culummadii qaybo badan oo ka mid ahoo in la yidhaahdo yadda bimacna alqudra looga jeeda waxaana ka mid ah biqudra culummada ku fasirtay waxaa ka mid ah a'immada ku fasirtay cabdullaahi ibni cabbaas saxaabigaas baa ku fasirayba waasamaa'a banaynaahaa biaydintaas waa jamcu yadin aydin markuu fasirayo wuxuu yidhi ay biquwatin oo ku fasiray kutubaha soo qaadanayana waxaa ka mid ah kitaabkan salafu saalixii imaamu almufasiriin imaamu dabari ou qoray ayaa soo qaadanayo oo salafu saalixiiba ay qoreen weey tabaaraka waxaa nasahnaaday alladii ilaahi ayaa sharaf badnaaday oo weynaaday oo khayrkiisu badnaaday oo xumaan oo dhan ka nasahnaaday alladii ilaahaasoo biyadihi awooddiisa almulku ou ahaaday asagaa maamula milki oo dhan asaga ayaa macnaha waxa weeye makhluuqa oo dhan macnaha waxa weeye wada milkiya oo asagaa awood ku milkiya samaawaadka dhulka wuxuu doonuu ku sameeyaa qaala cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi biyadihi almulku yucizu man yashaa wa yudillu man yashaa wa yuxyii man yashaa wa yumiitu man yashaa wa yuqnii man yashaa wa yufqiru man yashaa wa yucdii man yashaa wa yamnacu man yashaau buu yidhi intaas ayaa soo gelaysa weeyaan ilaahay baa wax kasta milkiya oo qofkuu doonu cisi u yeela
qofkuu doono dulleeyaa, qofkuu doono nooleeyaa, wuxuu doono ayuu dilaa, qofkuu doono qani buu ka dhigaa, qofkuu doono faqiir buu ka dhigaa, hadduu doono waxbuu ku siinayaa, hadduu doonona waa kuu diidayaa. adiga marka xaalad kastood ku sugnaataba waxaa wujuub kugu ah inay kuu soo sawiranto markaad qalbigaa wax kuu suureeyo inay isla markii kuu soo baxdo ilaahu wada ii qadare, ilaahu qadartaada raadi baan ku ahee, ilaahu raadi baan kugu ah inaad macnaha suuraysato mar walbaba. maxaa yeele qadar ilaahay wax kastood la kulanto biqudrati aljabbaar ayay ku dhacda weeyaan. wa huwa ilaahay calaa kulli shayin shay walbaba qadiirun, waa ilaah awooda. alqaadiru calaa kulli shay lahu alqudratu ataama watasarufu alkaamil fi kulli alumuur min kayri munaasicin walaa mudaaficin. ilaahay wax awooddiisa kula macnaha doodaayo ama kula loolamaya ma jiri karaan weeyi. alladii ilaahay waa midkii khalaqa uumay, mubtadaa loo soo qadartaa, huwa ilaahay alladii waa midkii khalaqa abuuray almowta dhimashada iyo walxayaata noloshaba ilaah baa abuuray. awjada fi dunya alxayaata walmowt fa axyaa man shaa wa amaata man shaa. qofkuu doono waa nooleen, qofkuu doono waa dilayaa. wa huwa alwaaxidu alqahaar. marka waxay dhaheen culammadu ma ahan bay dhaheen mowtku fanaa'un wainqidaacan bilkuliya can alxayaat, wa inamaa in kalamaan huwa mowtku intiqaalun min daarin ilaa daar, waa adduunkoo laga tago oo aakhiro la tago, sidaas baa la yidhaahdaa. maxaa yeele qofku markuu aakhiro tago xayaato kale u nool yahay, xayaato kale waa dhinta marka lagu leeyahay xayaatadii nolosha waxaa ka tagtay xayaatadii loogu talo adduunka in ugu noolaado, laakiin wuxuu nool yahay xayaato la yidhaha xayaatu lbarsaqiya. sidaa daraaddeed waxaa sugnaaday ana almayta yasmacu wa yaraa wa yuxisu wahwa fii qabrihi. maydku waxbuu maqlayaa, qabrigii isagoo ku jira ayuu ku maqlayaa, wuu ku arkayaa, xitaa qofkii yaqiinay oo soo ag maro oo salaamtuu ka radinayaa, waxbuu dareemayaa. axaadiista caddaynayda waxaa ka mid a in maydku wax maqlaayo waxna dareemayo. adigaa nool sad wuxuu maqlayda oo wuxuu maqlaayo maydku waxaa ka mid a xadiis saxiixu muslim iyo imaam albukhaariba ay warinayaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina axadakum idaa wudica fii qabrihi watawallaa canhu asxaabuhu wa inahu la yasmacu qarca nicaalihim buu yidhi. mid idinka mida markii uu dhinto oo qabriga la geliyo oo dadku ay ka soo tagaan asagoo dadka kabahoodii maqlaaya jaanqaadkooda, wa inahu la yasmacu qarca nicaalihim buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. qarca nicaalku waxa weeye kabaha markay garaacmayaan jaqafta ka yeeriya dadka soo duuga, maydku waa maqlayaa. isagoo dhawaqa jaanqaadka kabaha maqlaaya ay labada malag u imaanayaan, markaasay imtixaan ku bilaaban buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo caddaynaya xadiiskan oo nabigu yidhi, asna bukhaari baa uu ku qoran yahay saxiixu lbukhaari. maalinkii waxaan rabaa beder 70 gaal baa la dilay oo abujahal oo ka mid yahay. sanaadiidu quraysh kuwii ugu waaweynaay ceel gorafahoo meesha ku yiilaa maydkoodii laga buuxiyey. nabigu dushuu ka istaagay calayhi salaatu wasalaam, markaasuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, annaga ilaahay wuxuu noo yaboohay waan helnaye, ilaahay wuxuu idiin ballan qaado cadaabtiisii ammaanta ma hesheen. sayid cumara wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, rasuulka ilaahayow ma dad dhintaad la hadlaysa oo ku maqlaaya. nabigu markaasuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, waaladii nafsii biyadihi maa antum biasmaca lima aquulu minhum laakinahum laa yujiibuun. ilaaha naftayda maamulaan ku dhaartee adinku kaba maqal badnidiin buu yidhi, laakiin jawaabtooda annaga dhawaqeennu ayaga waa gaaraah, laakiin annaga dhawaqooda waana laka qariyey. raxmatan calaynaa annagaa nala ku naxariisanaya. in annaga naxariisna loo kaga qariya waxaa ka mid a waxaan soo qaadan waxa axaadiista nabiga ku sugan calayhi salaatu wasalaam. nabiga sida saxiixulbukhaari ou caddaynayo 2 nin oo qabri ku jira oo la cadaabayo nabiga la maqashiyey qayladooda. nabigaa la maqashiyey, laantimireed buu soo gooyey, waa kala jeexay, labadii qabriyow geesaha uga muday. maxay ku anfacee baa la yidhi. wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, waxaa laga yaabaa cadaabta in laga fududeeyo haddaan geedkaanu qallalin. 2 nin wuu sheegay rasuulku waxa loo cadaabayo calayhi salaatu wasalaam. mid wuxuu u soco jiray inuu ummadda isku diro,
midna wuxuu ahay buu yidhi midaan nijaasa iska dhowrin sidaasoo kale waxaa sugnaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi meydka markii qabriga laga soo tago oo malaa'igtu ay garaacayaan oo la cadaabayo qayladiisa waxaa maqlaya buu yidhi insiya jinni mahane inta kale makhluuqa dhawaqiisa way maqlayaan laakiin insiya jinni hadday maqli lahaayeen la saciqa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waaba nafta ka wada bixi laheed maxaa yeele annagaa naloo naxariisanayaa haddii hadalkoodu annagana soo wada gaari lahaay annaga keenna way maqlayaan laakiin kooda haddii na soo gaari lahaay oo qof kasta xanuunkii qabta iyo cadaabtii qabata iyo qabriga waxa lagu samayn dhagahana ku dhici laheed adduunka raaxo lagu noolaan lahay maba jirtaba marka sidaasaa meydka waxa weeye looga hadlay hadda waxyaabaha kaleeto oo asaga anfacayana shareecadu way ka hadashayoo ducadiibaa anfacaysa khayraadkii loo qabanayabaa anfacaya tasaduqiibaa anfacaya khayraadkii loo samaynaya sidaasay ku anfacahayaan nabiga marka calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waa midka abuuray alladii khalaqa almawta waalxayaat nolosha iyo dhimashada labadaba ilaah baa abuuray maxaa loo abuuray liyabluwakum ilaahay inuu idin imtixaamo ayukum kiinii axsanuu wanaag badan camalan xagga camalfalka si loo caddeeyo oo ummaddii imtixaam ay macnaha nolosheennu waaba imtixaamba waa imtixaamoo bal inaad noloshaada ka faa'iidaysato iyo inaad naftaada ku qamaartaa la fiirinayaa wa huwa ilaahay alcasiisu waa mid xukunkiisa qaalib u ah oo ka aarsan kara dadka ku caasiyooba alkafuuru dembi dhaafid badan ilaahay subxaanahu wa tacaala alladii ilaahay waa midkii khalaqa uumay sabca samaawaatin 7 samo abuuray dibaaqan toddobadaas samood dibaaqan isdul saaranoo qaarba qaar oo ka koreeyo maa taraa arki maysid fii khalqi araxmaan allaha raxmaankaa khalqigiisa min tafaawutin kala tagsanaan iyo kala dheeraasho iyo dulduleel iyo waxa weye dhismo foolxun iyo wax ka dareemi maysid xumaana farjici lbasara tabaayun wacadabu tanaasumin weye tafaawudka farjici lbasara bal aragga celi oo si fiican u fiirfiiriyo hubi bal samaawaadka fiiri ku cibro qaado bal wax ceeba ka fiiri hal taraa ma arkaysaa min fuduurin dildilaac ama jeexjeex ma uga jeedaa waa maya jawaabto maba ka muuqanayso humma arjici lbasara aragga celi karatayni 2 mar maratan bacda ukhraa wandur bicayni alictibaar fii hadihi asamaawaati alcajiiba yanqalib soo laabtay ilayka xaggaaga albasaru aragga khaasi'an xaal ou yahay mid dhiban ama mid hungoobay oo soo hungoobo waxba ceeba soo waayey isagoo dullaysan oo macnaha wuxuu soo laabanayaa waxba qalad aan waxba ceeba soo helin wal xaal buu soo laabanayaa huwa basarku xasiirun ou yahay mid daalay isagoo daalan oo ku soo laabanaya isagoo daalan oo go'ay oo aan wax tabaraho oo macnaha ceeb iyo midna uu ku soo arkaba aan haysanin buu ku soo laabanaya macnaha wax ceeba waa soo weynaya weey ilaahay haddana wuxuu noo cadaynayaa samaawaadka waxyaabaha lagu qurxiyey oo xidigaha ah walaaqad xaqiiqanimee zayanaa waan qurxinay assamaa addunyaa samadan dhow 7 samo midda ugu sokayda bimasaabiixa xidigo ifaaya sidii faanuusaho kaleeto xidigaha marka samaawaadka xidigaha waxaa la yidhi 3 xikmad imaamu qataada wuxuu yidhi 3 arrimood baa xidigaha loo abuuray annujuumu li3 midka koobaad ziinatan lisamaa in samaawaadka lagu qurxiyo walaqad sayana samaa midda labaad shayaadiinta samaawaadka maagaya inay waxyiga malaa'igta iyo inay soo dhegaystaan xidig aad arkayso dhacaya waa madaafiic lagu garaacayo shayaadiinta oo markaa waxa weeye khabalka dhigaysa weey midka saddexaad waxaa loogu talagalay xidigaha waa calaamaatin yuhtada weeyaan marka biriga iyo baxriga la marayo meesha qibladu kaa xigto iyo xidigaha dadka baadiyaha iyo ku lugeeyo mugdiga ku socdoo dhamo aad bay ugu intifaacaan biriga marka la joogo iyo baxriga intaba waa lagu intifaacaa waactadnaa wajacalnaahaa waxaan ka yeelnay xidigihii rujuuman gemidyaal kuwa oo lagu rajmiyo lishayaadiinta waactadnaa waxaan u diyaarinay waxaan u diyaarinay lahum shayaadiintana cadaaba asaciiri cadaabta la yidhaha cadaabu saciira ayaan u diyaarinay hadday shayaadiintu hadday samaawaadka u dhowaadaan
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب حدق بالضبطة وللذين كوي وحيليهن كفروا قالوا بي بربهم كو قالوا بي عذاب جهنم إلهي جهنم عذاب تذيلين أعاذنا الله منها قالوا عذاب جهنم إليهن شياطين بسقاسكم أها قالوا ذي حتى الله عذاب إياه وبئس المصير لا بشو ميل الله لابتنا عذابتا أغحمو ميل أهابو جهنم أغحم إذا ألقوا هدي لغو ريدو فيها جهنم قالوا هدي لغو ريدو مركا لغو طورو سمعوا وادمق ليسا لها جهنم إني أسقناطي شهيقا هنراك صوت حن أو سيدة دميرك أرنا واقعة سدح قلو اسكو نواق أقبال ليري جهنم نواق كييرة إيا دميرك مركو فيرك علينا يسيدة هنراغو أو أرنا واقو إيا أهل النار كمركي لعذاب سيدة أرنا واقان سدح داس قلو ويسنواق شبهان بالليري سمعوا وادمق لها جهنم إني أسقناطي شهيقا هنراك والحال هي أيضو تفورو أي كريسو هلا أيضو كريسة وهل عيسى أي هدنا وحوي سيدة درق أكرو كلاته عرض إلهي درنان تيدا هلا تفور بهم كما يفور الحب القليل مرير مركي ضب بيكل لغو شبه أي كو نحجرته سيؤرق رقمتو كالي الله نقبت باديه أي أتقين يسابا لير تكادو وحي السجي جهنمو تميزوا إني بصوصو عنتم من القيد عرض دراده إني قوضو أو أيضو عد انت صوق قدبته أي صوق أهل النار كأي مركع عنطوي كلما انضموا ألقي اللغطورة فيها جهنم فوج كاح وأهل النار كاملة قيب مركي اللغطورة سألهم وحي سؤاليان خزنتها ملائكة كشقيدة وما ملكيدة إيه أهل النار كوحوي نارتا لوغا دغاي وكيل لوغا دغاي جهنم وزبانيده ألم يأتكم يوصن إذين إيمان نذير نبي إذين دغه oo cadaabta ilaah idin kaga diga rasuul idin ma soo gaarin miya idin cabsi geliya ma waan xaq la idin sheegin maxaa maanta cadaabta idin keenay qaaluu markaas ahlu naarkii waxay leeyihiin bala inuu sanno iimaan iska dhaafe nacam waa noo yimid rasuul noo diga quraanka uu nagu dul aqriyay laakiin annaga diidnay fakadabna waan beeninay وقلنا وحان نري ما نزل الله إلهي ما بسودتين من شيء وحبس مدتين بقى وحان كلو كن نري إن أنتم ما أنتم أدنكم متهدين رسولي إلا في ضلال كبير بعد وين ما هاني وحكى لكم السجندين واد قلبنتهم بكون الرسوشي أننا دينتي إنكرني وحي ما أنت قرانيان قلت كودي بقرانيان ساسا كن يريب إليهم أنبيادي نلو صدري أننا بينين ونوي مادين وقالوا وحيكلوا لهن أهل النار كي وحيكلوا أرانيان لو كنا ورهدي أننا عنهان لهين نسمع كوا وحمق أو حق فهمه نسمع كوا مغلا أو حق فهمه أو نعقله أما وحقرنا أو فكرايه ما كنا ما أنو أهانين في أصحاب الصغير نارت الصغير اللي يراه أصحابتي كمد ما أنو نقونين نارتبا ما أنا نمهدان وحقرنا ينو محايا لوحي يقانينو وأدوية الظاهر كيدا إيو وحيابها بربر كابي فهميان لكن آخر إيو حكمد إله أو أبوري قرن مايا ماني كاسبي قرنا ينقلت كودي فاعترفوا وحي قرتين بو إلهيري بذنبهم ذنب قودي بقرتين قلت كي أي صوغلين إيو شرم قودي إيو بيننتي رسوش أي قرتين فسحقا فغانشو أبعدهم الله فسحقا الله ديرايو oo naxariista laga dheereeyo li asxaab saciir naarta saciira la yiraahdo dadka u saaxiibada ah fagaan ba u sugnaatay ilaahu la fageeyo naarta macnaha saciira kuwa gelaya naxariista ilaahu laga fageeyo macnaha waa laga fageeyaba waa fageyn ba u sugnaatay darsigeena caawa macasharkeena intaas baan ku soo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq ilaahay nagu anfaco naartana ilaahay naga badbaadiyo jahannamo iyo saciiro iyo cadaabta ilaahay naga badbaadiyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.